السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الواحد كسر دواتان برنامج كارون كورة صندوق دكتور شيخ محمد عبد داود oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland waxaan waxyaabo badan ka weydiin doonaa dhacdooyin ka dhacay muddooyinka ugu dambeeyay dalka haday noqoto dhacdooyinka cilaajada iyo waliba dhacdooyinka dad la sheegay in la qaatay ugu horeba Dr. Maxamed Cabdi Daawud kusoo dhawow Bulsho TV. aad iyo aad baad mahadsantihiin waan soo dhaway Dr. muddooyinkii ugu dambeeyay waxa dalka ka taagnaa dhacdooyin kala duwan haday noqoto qafaashato lahaa caruur baa la qafaashay qalliin kaliyo la helay iyo waliba cilaajiyo kala duwan oo dad badan lagu xareeyay bal maxaad arimaha ugu horeen kaas bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan filayaa markaan soo ururino inaha aad sheegtay laba mid bay ku soo ururayaan mid waxa weeye sixirka oo dadkeenu ay aaminsan yihiin inuu wax khatar oo qofka bini'aadmiga sakhiraya sida la doono laga yeeriyo ka dhigi kara iyo jinko isaguna dadka qaarkii aaminsan yihiin inuu galo bini'aadmiga geli karo oo markaa xanuuno maxaan ku dhahdaa ay ku ridi karo marka labada arrimood ba runtii yihiin waa laba arrimood oo dee diintana ay wax ka tiri ama ka taqaano ama diinta wax ka sheegtay waxaad moodaa waa laba wax oo cilmigu ka aamuso cilmiga waxaan uga jeedaa cilmigan maadiga ama saynisku maxaan ku dhahdaa iyo aqoonta bini'aadmigu uu kasbaday aanay dee shaqo ku lahayn dhinac kale haddaan dhigo labaduba waxa weeye horta dee jinku waaba qaybiyaan isagoo diinteena markaad u eegto dee maynu arag jin nabiguna calayhi salaatu wasalaam waan arkay nama odhan markii qurxiyo lagu soo dejinayay nabiga waxa lagu yiri waxaad ku tiraahdaa muslimiinta uuxiya ilaya waxa la ii waxyooday annahu istamaca nafarun min aljin in maxaan ku dhahdaa anigoo quraanka akhriyaya koox jini ay maqashay quraankii deedna ay yiraahdeen inna samicnaa qur'aanan cajaba waxaan maqlay quraan la yaab leh waxaad halkaa ka garanaysaa markaa in dee nabigu calayhi salaatu wasalaam aanu dee isagoo haddana aanu u tegin oo dee jinka maruu u khudbadayn jiray iyo maruu u tegi jiray iyo maruu la hadli jiray dee aana jirin isaga laftiisa waa ilaahay leeyahay waxaad ku tiraahdaa ilaahay unbaa ii sheegay inuu jinni dhegaysanayay anigu maan ogeyn laakiin ilaahay baa ii sheegay in markaan qur-aanka akhriyay jinno i dhegaysanayay markaa dee markuu rasuulkii kaa yahay qof kaloo yidhaahda jinla hadal baan ahayn isaguna uu ka sii xag jiraayo dee waxa weeye minayna laka haada xageed ka keentay jinkan aad la hadlaysiyo jinkan aad u yeedhaysiyo jinkan aad u khudbadaynaysiyo waxaan oo dhan markaa horta dee labaduba kaasi waa qayb kan kalena waa arrin yaroo dee cilmigu maadiga u yaqaano waxaa loo yaqaano trickiska amba khifad xaraka sixirku ma aha wax dee aanad fahmayn oo caynkaas waa wax a b c lahoo haddii lagu dhigo ninka saaxirkana wax walba ma sameeyo wuxuu sameeyaa midba wax yar buu ku takhasusay in yaruu dadka mustaqbalada ku sameeyo faraacinadii nebi maxaan ku dhahdaa muuse waxay ku tafanuneen ay ku takhasuseen inay maxaan ku dhahdaa intay tuumbooyin soo qaadaan meerkuri ka buuxiyaan oo tuumbooyinkana sidii maska u ekeysiyaan deedna meel halkan aynu ku taagannaho kale hoosteeda dab la dhigay saa loogu tuuro markaa dabka lagu tuuro tuumbadii maska u ekay ay dee meerkuri baa ku jiray meerkuriguna ma xamili karo xaraarada wuu kala baxaya markuu kala baxana ushiibuu kala tuumbadii buu kala bixinaya deedna wuu ciyaaraya deedna dadku u qaateen markaa inuu yahay maxaan ku dhahdaa mas olihii inuu mas ka dhigay fircoon ayaa markaa loo dareemay qaabka sixirkii ya ma aha sixir de wax la bartay weeye meerkuri iyo ula taambiyo waxaas uu ka gaar laakiin dadka maxkamada Soomaaliya sixirku inuu aqoontooda sixir heerka ay gaarsiisantaa waxay moodayaan de wax qariib ah oo la garanayno la fahmayno laakiin markaad wixii lagu sheego sidoo u dhacayo ninkan saaxirkii wuxuu sameeyay markaad aragto wad garanaysaa adigana waxba saaxirku kuma yeeli karo saaxirku wuxuu wax ku yeeli karaa markuu sunku waraabiyo hadduu de geed isku ka daro nimanka saxarada waxay isticmaalaan geedo khatar isticmaalaan iyo chemicals iyo waxyaalo la yaab leh iyo xayawaanaad imika tukahoo kale ayuu koodhayaa maskaxdiisa engeji markaad engejiso deedna budo ka dhig deedna hadday naagtu doonayso ninkeeda inay jeclaysiiso tukaha maskaxdiisa ugu darto shaaha iyo cuntada deedna wuu ku dhareerinaya oo ka tegi maayo yacni waa khayaal caasho bari maxaan ku dhahay tuke iyo dacwo sumaysan beer maxaan ku dhahay waraabe waxaasaa deedna waa riwaayadda waxana waxaa laga yaabaa inay qofka bini'aadmiga ah hadduu dee cuno oo jirkiisa uu galo inuu cudurro khatara ya oo dee kuwii xayawaanka ah inoo soo gudbiyo oo dee cilinkiisaba la saarin ilaan qofkii waa qof bini'aadmiga xanuunada xayawaanka hadday ku dhaca mushkiladeed marka waxa weeye sixirku horta waa khidcaddaasuu cilmigu yaqaana jinkana dee diinunbaa sheegtay cilmiga maadigii ma sheego jinkaana diinteennu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoogu sheegay maxaan ku dhahdaaye shaydaanka ugu weyno
aabbahoodoo ka ugu daran inay nala dagaalamayaa ina kayda shaydaani kaana daciifa ba ilaahay subxaana watacaala yaa wax kaydba male waxba male wax leer cusubina ma jiro aakhiro marka la isku yimaadana yaa inni dacawtukum fastajabtum lii ma laa tarumuuni waluuma anfusakum ma ana bimasrikikum wa antum bimasrikaya yaa marka anigu waan idiin yeedhay uuna wax awoodahoon idinku bahaleeyey ma jirto marka waswasada waxaa la yidhaha xashaashaqa amba marka nafta bini aadmigu waxay jeceshahay uu ku soo dhuunto ayay diintu u taqaanaa shaydaanku inuu ku shaqaysto oo markaa uu ku yidhaahdo wax kuu qurxiyo dee naftii lafteediina waa wax ay naftu ma aqbali karto ayuu qurxiyo sinadii oo kale khamrigii oo kale balwadii oo kale tuugadii oo kale beentii oo kale khiyaamadii oo kale waxaasuu shaydaankii u qurxinaya inuu qofkii magsab amba wax ku helo marka kaasaa laynoo sheegay laakiin laynooma sheegin jin intuu dadka dhex galo qofkii qabsanaya oo la wareegaya casaabtiisii wixiisiiba oo isagii hadlaya oo deedna maxaan ku dhahay nin sheekhi la hadlayo oo ninkaan sheekhi leeyahay waaryaa ka bax haddaad ka bixoodo waan ku gubaya ma hay gubin isagaaba dab ka samaysana maxaad gubi isagaaba dabe ilaahay naar baaba adiga abuurtay ilaahay jinkii ayuu dee ku yidhi markaa uu deedna saa ula hadlayo ayay markaa wadaadadani soo xawleen marka arrintaasi aad iyo aad bay ugu badatay balka sixirku ay noo dambaysay iyo carruurta la kaxaysanaya taa jinku aad bay caalam alislaami ugu badatay culimo fara badan baa aaminsan laakiin culimo badanna way diidan tahay anugu markaa waxaan ku jiraa oon ayeysanahay ya oon arkayaa in waxaan uu yahay maxaan ku dhahday khayaal dadka la gelinayo oo masaakiinta ah oo dadka masaakiinta jilicda san leh ee naxariista u baahan ee amba u baahan daryeelka u baahan ee in loo naxariisto wax la siiyo u baahan dadkaas oo wadaadka macalinka u hina yahay kuwan aaminsan inuu jinku dadka galo oo had iyo goor isla uu ku baqa gelinayo ya markaa waxa isku darsamay qof baahan iyo macallin yidhaahda jin baa dadka gala deedna ilmihii wuxuu odhanaya baahidiisii ma odhan waan baahanahay jin baa igu jiro odhanaya sheekh markaad leedahay waxba kama jirto arrinka sixirku maxaa daliilo aad adeegsanaysa de waxaa daliil u ah maxaan ku dhahdaa ma hayno wax qur'aan laakiin dadka la sixraya ee la jimcay ee kuwa wax falaya ay dad marka tusaale ahaan gabadh nin ay isjeclaysinayso ay qabto kale ay ku tiraa wax u qabo ee hadhow tala ninkii gabadhi miyaanu jeclaanayn oo aanu sidiisii ahayn miyuu nacaya wax aliyaal wax ka jira ma jiro qofku jeclaysiin karaya oo wax qaban muxuu qabanaya de haynoo sheego wuxuu qabanaya muxuu qaban anu waxaan ku idhaha haddii uu jirkaaga wax taabsiiyo amba madaxaaga amba jirkaaga dee wax mariyo amba cunto afkaaga la geliyo ya amba dee daroogooyinka qaar baa lagugu buufin karaa oo dee maxaa moogtay hawada lagu marin karaa qofkii waxa uu noqonaya qof la saqan imanka ka soo qaad bahashan ka jirta maanta dalkeena ka jirta oo kale baryo badan baa la qaylinaya oo lahaa qaqaqaqaqa dad baa jiro carruur baa la kaxaystaa waa la geeyaa waxbaa border baa indhaha lagaga daadiyey amba rag baaba inta meeshii loo yimid lacagtii tiriyey inta $100 loo dhibay lacagtii wixii maqalka yaalaba u dhiibay anigu waan u soo taagnaa nin $30,000 xaafadayda agteeda hay-ad lacagta ka shaqaysay isagoo u shaqaynayay u tiriyey $30,000 nin baa $100 u dhigo saasuu yidhi deedna wuxuu yani eegay buu yidhi bal inay baasha maxaan ku dhahay saxtay yayn kale deedna markaasaa igu dambaysay buu waay deedna maqalkii baa soo qaaday waanu tiriyey dee taas sixir maaha sixirka laftiisa waa la odhan karaa waxaa lagu adeegsaday chemicals baa lasoo geliyey maadad baa jirta la yidhaha scopolamine markii la doonana bowdhar bay noqotaa laga dhigaa boodadaasaa deedna lacagtii iyo wixii lagu keenaya la marinaya hawada markaa ay ku maraysa sidii ursad marka qaarkood sankaaba daraaga urbay leedahay qariibasa inaad sii tiraadaaba laga yaabo sidaa aad tidhina khalaas maxaa ka oraya markaa aad maskaxdaada ay ku dhacdo gebigaagu waad xawilantay sideed xawilan tahay waxa weeye wix alyaalo wixii lagu dira amara ayaad qaadanaysa waad soo jeedaa waad socotaa waad suugayn kartaa ma dhacaysid laakiin warqadda keen waad keenaysaa lacagta jabadaada ka soo saar waa ka soo saaraysa ee horgal waad horgelaysaa yaa isqaawi waa isqaawinaysaa maqalka ay tus xataa talarkan soomaad arag maxaan ku dhahay baanka laga qaatay ee ATM-ka kaarkiibu koraya lacagta ka soo saar 5,000 ka soo saar meelaha ma shantii intaad kaarkii geyso hadda baasweerkaaga baa ismaaras markaasaad ka soo saaraysaa shantii markaasaad u koraya ii dhiibaanaga dibaddu taagay ugu sigay markaasaad u dhiibaysaa ilaa intaa jirkaaga ku jirto oo dhan qofkaas khiran baata waana damaadad la garanayo oo moogtay Colombia iyo waxaan ku ah oo in badan dee la isticmaalay marka kaasoo kale hadduu nin yaqaano waxaa u dhigma dee waxay dadka hore waa saaxib laakiin ninkan waxa weeye waa nin xarfad leh waxbuu soo bartay waxa uu soo bartay lagu dabaqaya laakiin waxa qariib oo aan garan karayno dee wixii ninku haddaanu jaahil ba yahay oo dee chemistry garanay oo iskoobalmint waxa qabta garanay oo bardaaga geedka la yiraahdo wax laga sameeyo waxa uu sameeyo aanu garanay dee ma garay iska badaa inagee reer Yurub bay ku dhacday
dad faransiisa nin faransiisa ah ay 2012 maqalkiisoo dhan la qaatay ay soo dhan la qaatay mar dambe la ogaaday Chinese baa soo sameeya yaa xisaabad Chinese ay noqotay wixii waxa sameeyay marka halkeenna way soo gali kartay marka aan ku qaylinay waxa doodaa inay khafiiftay laakiin waxa weeye wixii sidaa lagu mariyo jirkaaga loo mariyo ama sankaaga la mariyo ama cuntada lagu siiyo ama lagu siiyo biyaha lagu dari karaa haddaad ku sii yarjeesato oo dheer fadhido ninka dee bahasha sitaa uu kugu dari karaa ninayna waxa marka maaha wax qofka wax waa daroogo waa daroogo waa drug waxa weeye chemical niga maskaxdiisa walba neefsiisa wax ka bedeliya iyo garashadiisa marka kuwii hore sixradii hore la sheegi jirayna ee aan bal looreeyay ninkan baaga la jeclaysiin ama nima waxba jacayl ma ahayn ku bukoonaya waxaan ay wadaadadu sheeganayaan waxaan ku ninka ku madiideynaya waa sun uu soo dhiibayo oo laga yaabo markaan hadaan kaaga sheekay waxay ka samaysantahay imika de cudurba keeni kara qofka uu bukoonaya ninka waa bukoonaya marka iyad markii hore uu sii socdaa waa ay ahayd dawi fadhiisay gabar kale ku sii socday oo ka fadhiistay oo ka bukaan kaba noqday marka ragga noocaas ee suxarada waxay isticmaalayaan oo waxa soo isagu kaasi dee wax maxaan ku leeyahay diinteena ku jira oo caynkaas oo lagu yiri maxaan ku raadayay sida aayada quraanka ee isqulcud barnaamij ku jirta oo mashar nafaathaati fi al-uqad ya oo loo ogaayo da carabtu isticmaali jirtay suxarada oo deeda la diiday qofka muslimka inuu ka baqo oo leeyahay ilaahay ku hadlay waxa tiraahdaa ilaahay waxa aan ka hoos galay marka intaas kugu filan laakiin aad baqato oo khalkhasho oo waxaagii samayso intaas oo dhan wuxuu ku yeeli karaa ma jiro qafaarashada ama qaadashada caruurta yar maxaa ka jira waxa ka jira anoo waxaan qabaa in maxaan ku raay la isticmaalay xisaabadii dalkeena soo gashay xisaabadii laga yaabo imkeen carartay way caruurtu waxaan sheegayaan waa mutawaatir sabab xadid inkastoo oo mutawaatir waxaan uga jeedaa wax soo noqnoqonay weey in baa la qaatay mid baa la qaatay ku yar baa la qaaday marka dad baa ciyaarayo waxaan tijaabinaya ama tijaabo ka dhiganay ama dee fulinayay kuwa lacaga ku dhacayna dee way jiraan oo rag far badan oo lacagtii laga qaadayna waana u taagnaa baan ku markii uu ninkii ka dhaqaaqay ayaanu mid ninkii oo taagan oo la imika lacagtii bixiyay $30,000 oo maqalka ka saaray nin dee miskiin oo wadaad oo beeshigeena mu ahayn bahashana dee chemical baan u garanaya waxay sameynayso iyo sida qofka uu gasho iyo waxay ka dhigto iyo say ka samayso doctore qaadashada caruurta yar ee marka la qaato ee meel lagu xiro maxaa marka hore caruurta lagu bedelay miirkooda anigu malayn ma waa iskoolbeebintana lagu bedelay dawadana lagu bedelay anigu saalima ka filayo waxaan u malaynayaa bahashana isticmaaleen bowdharka markay isticmaalayeen khaasatan dumarku waa xarfaan waxay sameynayaan amba ninku markuu isticmaalayo cudbi buu soo qaadaya labada dul ayuu cudbida gelinaya markuu cudbida labada dul geliyo uu ku aroorinaya waliba markuu bahasha handal gareynayo wadwado ya dee ma afkiisina sankum buu ka neefsanaya afkiisi ma qaadanayo marka isaga wax ma yeerayso laakiin qofkii uu dhiibay uu bahashii mariyay markuu uu marinayay to qofkii way sakhiraysa oo tan qaajisay iskoolbeebintii iyo Colombia laga isticmaalo Mareykan baa laga isticmaalo Yurub baa laga isticmaalo meel baa laga isticmaalo ma jira caruur kaliya laga baxay oo xubnaha anigu in malayn maayo halkan maan arag wali qof kaliya laga baxay laakiin caruur leeyahay waxba lagu mudmuday oo soo noqday waynu aragnay ilaa haddana ma hayno dee waxa weeye oo hadaanay dee si kala aanay ahayn oo dee dadku marka la bajiyo waabay baqan karaan wali qof ilaa ilma iga maqan oo ilmihii uu maqay caruur muddo yar maqnayd waynu aragnay oo soo noqotay oo tii waxa lagu sameeyay ya qaar lagu sii wada xadka laga talaabinayay hablo oo iyagana la soo qabto boolisku soo qabteena iyagana waynu aragnay laakiin dad ilaa hadda la jeexay oo kaliyihii laga baxay laakiin waa waarid ee gilmahan marka sida loo qaato saddex wax bay ku sameeyaan nimankan mar waxay ka dhigayaan labada indhood bay ka ridayaan ilmihii yaraa caruurta deedna kuwan dawarsada maxaan ku raadin meelaha dalalkan jaarka ayuu deedna la tagay ilmo iska rabaysta buu garada caruurna ma lahaynba deedna halkaas uu tagay ilmo yar oo indhalaan haysta isiya wax dalkiisii maaha halka kaalkan laga qaaday inuu Djibouti ka dawarsanayo ama Ethiopia ilmaha yar laga dawra geenayo waxa laga yaabaa meelaha qaarkood in dad lagala baxayba haddii dee la haleelo waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood in diintaba laga bedelay oo hay'ada kale dee waxaa jira caruurta qaata kuwaasoo kale oo loo geeyo oo markaa dee isagii abtirsiintii oo xulba u ilaabo waxaa la sheegaya qaar magaciisa la ilowsiinayo halkan beri hore ka dhacday muddo imika 10 sano laga joogo ilmo yaroo magacaagu muxuu yahay ma aha gadko bedel lagu dhajinay oo deedna la ilowsiinayo aabayaashii magaciisa wixii soo dhan markaa crime-ku adduunka wuu jiraa laakiin waxaan aynu inagu waxba kula carayno waa sixir maaha sixir maaha dee sixir haddaad sheegto sixir wuxuu macnihiisu noqonaya waxaan la garanayn laakiin waxaan waa wax la garanayo sixirkuna
waxaan la garanayno qofka bini'aadmiga wax yeelayaana oo de waxaan idiin sheegay aan ahayna ma jiro markaa dadka baqaha laga daayo wax baqo oo jira ma jiro waxay ilmaha waxbaad tababaraysaa waxaad leedahay dariiqa markaad maraysa dadka waaweyn ka fogow hadduu nin kuu yeedho aanad garanaynin ka durug soo garamaysa qof aanad garan hadduu kugu soo dhawaado ka carar haddaad meel timaado wixii hortaada yaalay ha ka jeejeysan shaah iyo biyo aad cabaysay waa intaas wax lagugu daraa ama moogta caynka markaasaa u tilmaama dadka laakiin aad tirahdaan waxbaa jira de wixiina ma jiro khalkhalaho caynkaas wax la fahmi karayo iyo garan karay haddii aan intaa kaga imaado taa qaadashada iyo qalafaalashada caruurta ood ka hadashay doctore بعلاجيديga ka waran noocyada cilaajidii sababaha waqtigan keenay cilaajida dalka ku soo bataa horta iyo waxyaabo cilaaj waladeed wax lala yaabo horta ma jirin intii aynaan qaxin dad badan oo jingalaana ma jirin dad badan oo maxaan ku raahday cabanaya waxa ka cabanaya iyo cilaajina ma jirin markii aan weydiinay wadaadada waxaan ku shaqaystaa waxay nagu yiraahdeen intii dalka laga maqnaa ayaa jin soo degay dalka marka intii laga maqnaa jinkuna qarfada ayuu degaa waxaaba joogay askartii afeenaha joogtay muxuu ugu dhici waayay iyaga ugu dhici waayay kuma dhicin hadii la askartii afeenu bin isbedelay intii aynu ka maqnayn dalka ka maqnayn ayuu jin soo degay meelaha meesha uu degay markii aan soo noqonayna jinkii baa mataqaana dadkii kale taasoo kaliya ma aha waa la qaxay markii la qaxay dadku waxba ma haysan ya dad fara badan baa khafiifay dadku dee siduu kala badan yahay ayaa dee dabcay oo qaar bay markaaba halkaa lagu daweynaya dulcad iyo eeriyada dad badan waxaan arkayay mar aan mid fisid ku imid la daweynayo leeyahay jin baa ku jira oo dee kala hadlay wadaadada ku hor aan ka daayay dalka jinna ma jireen ilmahan qofkan wax u baahan yahay hadaa wax tari kartaana tara mushkiladiisu haday jirtana mushkiladiisa darisa waalidkii baa ku daran ma waanu lahaynba ma agoonba ma rajayba ma gabadha waxaa qaban nin arxan daran oo balwad leh oo moogtay dee dilaya oo aan xariis iyo waxba tooran lahayn waxaana waxay u badan yihiin dumarkii dadka jilicda leh marka dadka jilicda sanaana hayntoodii baa yar waxtarkoodii baa yar waxaanay ku jiraan gacmaheenni bay ku jiraan marka raggaa ilaalinaya ee walaaladoodii ee la dhasheen amba qabaa haddaanay lahayn dadkii naxariista lahaa aanay ahayn oo dee qofkan dhibaatadeedii waxa haya aanu darisayno nu baadhayno ulu qabayno la noolaanayn dee qofka waxay odhanaysaa marka ma odhan karta kan kama cabanayse jin baa igu jira odhanaysaa example baan ku siinaya dumarku siday u jilicsan yihiin baan examplekaas boqoradii ingiriiska Queen Elizabeth waxay sodoho ahayd gabadh diyaana la odhan jiro oo inankeedu qabay waxaan dhagahaygaa ku maqlay BBC-da iyadoo ingiriiska ku hadlayso la wareysanayo ya inay mararka qaarkood maxaan ku dhahdaa badbaqa intay gasho boqoradda la nooshay moogtoo sodoho ah intay badbaqa gashay inay makiinad isku saraysay midida isku saraysay maxay midida iskugu saraysaa aan iskugu sarayaa bay tiri waxaan iskugu sarayaa boqoradda rafka ee bilaan naxariistii intay gacantay qabatay inta alla miyaadsaa oo ma gacantii baa isku midib alla gacantii baa ku jab alla waxbay noqotay intaasoo dawe aan ka dhiganay bay ku leedahay maxaa ka maqan waaba boqoraddii ingiriiska marka dumarku way jilicsan yihiin nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay qawaariin markaa iskama xajin karaan cunfiga iyo dagaalka iyo naxliga iyo inkaaraha markaa waay markay dee faqri u sii dheer yahayna ee busaaradii taallana way ka sii xag jiraan markaa waa inay iska goodasho markaa qaxootiga la joogayna baahi baa taalay imikana baahidii baa taalla laakiin waxaa ka faa'iidaystay baahida maanta joogta oo gefka saaraya oo khada saaraya oo billi aan canaananaya maanta wadaadada waxaan ku shaqaystaa waxaan waxa weeye wax jira ma aha ilaahay ha ka yaabaan soo garamaysi dadkan ha u sheegaan in jinka inay iyagu jinka ka adagi a'uudu billahi minash shaytaani rajiim jinka ku filan quraanku intaas uu inoo sheegay qul a'uudu birbinaas qul a'uudu birbil falq baa ku sheegay habeenkii markaas aqriso haddaad baqbaqanayso haddaad kala sheegay haddaydan baqanaydo waxaan wax qabaqabana qaar baan ku uri waa buu xalaalo xajin dalka jooga aniga igu soo xareeya aniga hadlayo soo ma maqlayo imika ya aniga igu soo xareeya amba luqmaan ku soo xareeya ku iman maayo adiga anigana iiman maayo taajirka weyn ee maalqabeenkana u tegi maayo professorka jinku geli maayo eegada gabadha professorada geli maayo gabadha dhakhtarada geli maayo ta macallimada geli maayo waa muxuu masaakiinta yaryar uun bahalkan eryanaya de muxuu yahay markaa waxbaad garanaysa marka wax la baarayo waxbaa la ay suurad galaya horta faqriga iyo baahida iyo naxariistarida markaad ka saarta meesha ee qofkii markaa inuu jinkalayo in kale laakiin markay baahidii iyo faqriga iyo busaar iyo aqoon la'aantii taalo macallin wax iska dhigayo isaguna malcaamadda wuxuu dhigaa quraanka u dhigaa uu jiro oo afrika tan saacad uga sheekeynay jin baa qof kale iyo jin baa ka saaray jin baa galay oo tarifay qofkii la tarifay gareynayo dad kale wuxuu ku noolaanayo marka waxa inagu batay imika dadka waxaan ku shaqaysanaya marka ilaahooda ha ka yaabaan waxaana ka baxaan xanuunadan waa maanta waa la bartay mid baan idin sheegaya diinta islaamka ilaahay quraanka dee kuma daweeyo quraanka ma daweeyo dee xanuun yaa yiri quraanka wuxuu daayay dee ku taala shifaa fi sudur
ilaahay quraanka ma huwa shifaa buu inoogu sheegay waxa weeye wuxuu daweynaya qofka bini aadmiga ah ayuu shakhsiyadiisa quraanku daweynaya uu ka dhigaya qof aan been aqoon qof aan xanaqoon qof ilaahay ka yaabaya qof xaq u dagaalama qof caynkaasa wuu daweynaya saas ku daweynaya morally buu ka dhigaya qof hagaagsan laakiin TB buu quraanku daweynaya impossible cancer buu quraanku daweynaya no ma dhici karto soo garmaysid duri buu ka daweynaya quraanku qofacaysan ka daweynaya dawada caadiga doono ku samee meel ay ku taalo xanuunadu ka daweynaya example kala ku siinaya nabiga kaleey salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasallam gabar baa u timid waxay yaa rasuulallah waan dhacaa waan suuxaa soo garmaysid waan suuxaa marka ibn Abbas baa nin saxaabi u sheegay gabadha halka maraysa ma garanaysa waa gabadha helu janna nabiga noo sheegay inay helu janna tahay waan la joogay markuu noo sheegayna waayo bay ayuu yiri wuxuu yiri nabiga inta u timid yaa rasuulallah waa gabadh madow dadkii madoobaay oo iyaguna iska dhibaataysna waxay tiri marka nabiga uu waan dhacaabay toban suuxa marka waxaan doonayaa inaad iga daweyso suuxdinta dadna nabigu wuxuu ku yiri suuxdinta waa la yaqaan balabsi baa fikriisiga loo yiraahdo soo garmaysid marka wuxuu yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam miyaan ku duceeyaa mise waad sabri oo jannadaad ilaaha aakhira heli doonta mise ilaahay baan ku baryaa inuu ku duceeyo oo kaaga qaado waxana ilaahay xanuunadani waxaan oo dhanba ilaahay u keenay inaynu wax ka baranno oo adduunyada oo aqoon yeelano oo eegno de noloshu janno ma aha waa la isku keenay imtixaamaya kaas waxaya lagu leeyahay inaad u naxariisateen kala eeg waa wax jira nolosha kamida marka miyaan ka saara abu gabigeeda meesha ka saara soo iska sabri waxay tiri yaa rasuulallah waan sabrayaa waan isqaawiyaa markaan suuxee ya bal aanan marada iska dhigin igu duceey taas kuna ii samee waayahay wala kal jannadii baad leedahay nabigu hadduu shaydaan yahay suuxdintani ma shaydaan buu gabadhan kaga tegi lahaa fuulayo oo rakibayo oo kaga gariirinayo oo ilaa cudurrada ugu badan ee dawladda suuxdintee jinka wax kale u sameeyaa ma jiro oo sarca waxay u qabeen ibn Taymiyyah ibn Qayyim iyo ibn al-Maxaan ku raacday wax alla waxaan ay wadaadadu akhrisan kutubtooda iyo culimadii hore oo dhaniba iyo muctasilada laftooda qaar kamid ah culimada sabab loogu qaatay oo qaar kood diidi jireen kulligood waxay u qabeen inuu sarcu yahay maxaan ku raacay jin sarcu de jin maaha maanta waxa la ogaaday waxa weeye waa cilad yar oo maskaxda ku imanaysa cilada yar ee maskaxda ku imanaysa waxay abuuraysaa waa nuqdad yar oo laga yaabo flow of electrons inay halka ku duurayaan oo halka ku sameeyaan marka taa marka la qaado amba dawa la siiyaa yar oo la yaqaano macruuf oo sida aspirin ko kala oo dalaba bilba ku qaato qofkii daweysbayo ya amba waxa la saasa lagu sameeyaa laakiin maanta hadda quraan ku akhriyayso ilaahay ducada uu aqbala haddaad u ducayso ducayeel tahay ducada ilaahay uu aqbala wax walba ilaahay ducadiisa uu aqbalataa warmaayno laakiin ilaahay wuxuu nagu adoonsaday inaynu xanuunada iska daweyno oo sida la iskaga daweeyay bini aadmigu iskaga wada daweeyo aynu iskaga daweyno دكتور محمد عبد الداود ما jirta qof inta dhakhtar la geeyay kulladnaan waayay deetan cilaaj la geeyay oo marka quraan lagu akhriyay uu qeyliyay kulladnaaday waxaas inta ugu badan waa sheeko qaar baa ku oranaya dhakhtarkan tagay dhakhtarkii dawadiisii waxba imay tarin markii dambe anaaba iska bogsaday xanuun jirkeenu wuu istaweeyaa jirkeenani waaba tiran cusub oo dhakhtarnimadu ma caafimaad ku leeyahay marar badan buu ciladan jirkaaga ku timid jirkeenu isleefaya oo istaweeyaa isagu oo moogtay dhibaatadii ku timid ka takhalusa way jirtaa taasi laakiin qof suuxsanaan jiro suuxdin ahaa dee suuxdintii waana kula way fudud tahay jin kale oo meeshan galaya qofkan dee dhex galayaan ma jiro suuxdintaas un baa wixii berigii hore lagu ciyaari jiray oo dhan tiina maanta waa la garanaya waxa kale isaguna jira waxaan loo yaqaano maxaan ku hay psychoanalysis qofku marka uu maxaan ku warware isku buuqay ee caynkaas ee kuwan aynu ka sheekeynayno u badan markaana iyadana waxay u baahan tahay inay fadhiisato oo loo sheego oo dhibaatadii haysatay ee ninka ka haysatay hadeeg ee walaalkeed ka haysatay ya ee reerka ka haysatay waliba hablahan guryaha ka shaqeeya ayay u badan tahay iyo gablahan maxaan ku casharada imika diiniga dhigta kuwa diiniga dhigtana wadadan u baa waxaan ku afuufay oo rijin baa jiro dadka kala haday ka daayaan oo jinna ma jiro jinku wuu jira laakiin dadka ma galo a'uudu billahi min ash-shaytaani rajiim baa ku filan quraankan aanu ku akhriyo adigu ba isku akhri maxaa isaga quraanka u dhiibay iyadoo aanu akhrisan lahay duu quraanku daweynayo taana markaana waliba waxa ducada laga aqbalaya qofkan tacbaanka ee miskiinka ee faqiirka ninkan maxaan ku raayay lacagta dollarka urursanayo ka ilaahay wax ka aqbali maayo kan miskiinku ilaahay wax ka aqbalayo marka muxuu ducaysan waayay ka miskiinka daawadayaal intiin haatan nagu soo biirtay halkan nagala socotaan waa shashada telefishinka caalamiga ee bulsho bartamaha waxaanu kaga jirnaa barnaamij gaar ah oo ku wareysanayno Dr. Maxamed Cabdi Daawud kaasi oo ku faaqidi doono dhacdooyin kala duwan muddooyinka ugu dambeeyay hadalhayntooda ku soo noqonay qaybaha bulshada Dr. haddaynu barnaamijka ku sii socono
bal noocyada daawooyinka iyo qaababka kala duwan ee dadka loo daweeyo hadday noqoto garaacidda iyo hadday noqoto qur-aanku akhrinta bal ka waran dhibaato qofka ma laga yaaba inay u keenaan dawooyin aan cilmi aan kuliso de waxaad arkaysaa oo sawirada ku aragtaa imika masalan youtube-ka qaar isku xayeysiinaya youtube-kii oo le waxbaanu daweynaynaa marka de wixii waa ganacsi waad garan kartaa ya imika maalin waxay qaar baaba tviyada yimid oo yidhi waxaanu daweynaa jinka iyo cudur walba iyo caynkaasoo dhanba dhammaanto marka ninka tufta lihi dadkaynu naqaano hore ee ilaahay baryaa ilaa ilaah qofkaa caafimaad sii dee nin isxayeysiiye mu ahayn wixiisu qarsoodi buu ahaa waxa ma aqaan biska odhan jir laakiin ninku ay arkay maqlay oo youtube-yada isku qoraya oo tviyada iska sheegaya oo dee inuu ganacsi yahay waad aragtaa marka taas waxay sameeyaan markaa waxaan ay samaynayaan dadka ku samaynayaanna aad iyo aad buu runtii dee u dhibaato badan yahay waxaad arkaysaa nin markaad youtube-ka aragto inan hayo oo camaajuraynaya inantii moogtay ya oo le indhaha kala qaad oo dhirbaaxa bab kaga siinaya oo le jin baan dilaya ma jin buu dilaya mise qofka inuu dilaya oo le jin baa hadlaya ma jin baa hadlaya mise qofkii baa hadlaya يعني waxyaalaha ma aan dee maskaxda bini aadmiga gelayn jinka yaa arkay inuu hadlo hadalkiisu sidoo eegay waayo qofka inoo sheegay jinku inuu hadlo oo sidoo hadlo yaa inoo sheegay jinku inuu Soomaaligeena yaqaaniin aanu aqoon jinku inuu af kale ku hadlaya yaqaan afka jinka yaa yaqaan eeg so many questions ciida cabari ka badan inay ka jawaabi kareen wadaadadani ayaa markaa jira marka wuxuu leeyahay jinkii baan la hadlaya gabadhii buu garaacaya uu dilay example baan ku siinay yaro kooban ninba gabadhiisii dee mar walba waanu ku adkaa moogtay ayay tiraahdaa waan dhaco jin bay haye moogtay maalintii dambe uu deedna yidhi iyadoo dhacday buu yidhi jinka maalin ya markuu dee dhacday ayuu dabkii halka yaal yidhi jinka maanta waanu kala hadhayna waanu kala adkaanayna ninkaa gabadhayda saa u gelaya ya waanu kala adkaanayna labadaas sabradood buu qaado labadii sabradood buu dabka geliyey wuxuu labadaas sabradood intaan ka soo saaro ayaan deedna duudka kaga gubaya jinkaa waa gabadhiisii ilan jinkii waa sida wadaadku dee sameeyo ya deedna waa ku qabanaya markuu deedna bahasha cadaatuu la soo baxay ee war ilaahaga ma taqaan war ilaahaga ma taqaan war jinna ma hayo iga daa marka dee eeg qofkii marka waxa weeye dee qofku uu og yahay waxaan oo dhanba hataa qaar baa dumarka waxay leeyihiin gabadhii lala qabay bay leeyihiin waan gala ayay ku tilmaamayaan inay ku jirto oo marka ayaa gabadhan isticmaashay sixiroole u tagtay buu leeyahay kala iminka meeshan ka hadlayay youtube-yada isku duubay gabadh buu la hadlaya markaasuu gabadhi waxay leedahay magaceedii waa anigoo imika hadlaya markaas halkan ka walaal maxamed cabdi daawud baan leeyahay waxaan ahay jaamac hebel baanay magacayga ma sheegan jaamac hebel baanay marka jaamac hebel baan maxamed cabdi daawud kale anigii baa leh hadda ya marka waxaan ku galay maxamed cabdi daawud waxa weeye wuu iga badiyey halkaa iyo halkaas uu iga badiyey anaa odhanaya hadda aniga baa hadlaya maxamed cabdi daawud waxaan u galay wuu iga badiyey waxaan doonaya inaan aakhiro u diro يا marka gabadhan ay sheegaysana waa heblaaye hebel markaasuu isagii hadlaya uu leeyahay dadkii oo Israailiya oo dumarka raacina oo saaxiibka iska ilaali oo ninkii naagtaada iska ilaali oo naagtii ninkaaga ku fali kara oo ummadii oo dhan baa la isku diraya oo laga dhigaya ummad wax aan jirin oo khayaalo dee aan asaas lahayn marka waxa weeye waa la isfaraa waa la sixraa waxa soo dhan wax liyaan wax ka jira haba yaraatee ma jiro dadka waxa ku shaqaystaana waa dad masaakiina oo tacbaaniina oo u baahan raxmad iyo taageero maadiye la siiyo marka intaynan taa ka bixin doctor qof ba pressure ama torture lagu sameeynaya ciqaabid iyo cadaadis la saaraya ma laga yaabaa isagu inuu fake waxan beenta ah uu sheego ma dhici karta doctor والله tallaabooyin aad iyo aad u fara badan oo khariban bay dhaceen markaas dadka imika waxa jira laba xidid oo halka mara oo qofka maskaxda geeya labadaas ay ku dhagaan mararka qaar kood saa ugu dhagayaan moogta marka labada ku dhagto xataa dhakhtarka marka lagu barayo baalkan xididka waxa lagu oranaya aayar taabo ma hayna saa cadaadiso xididka waxaad ku garanaysaa in wadnihiisu liig sameeyo oo meelo kale dhiig kaga soo darsamayo ayaad codka ka garanaysaa baal marka firkariina saarta weey waa labadii maskaxda geynay labadu isku mar taabanaya kuwa wadaadada qaar taabtaan mar labadii isku mar taabtay ilmihii uu taabtay labada isku mar saa cadaadiyay dhiigii de maskaxda ma tagayo haddaan maskaxda tagana maskaxda ilbirqsi haduu dhiigii oxygen buu sidaa waxay ka dhigantay oxygen halka lagu qabtay oo kale marka maskaxda hadii oxygen iyo dhiigii weydo dhiigii geynay baasho siday daba baqtiyaysa qof waxa laga yaabaa inuu xanuun baqaadaba uu deedanba noqdaba labadaas ku dhagaya mana garanaya labadani waxay qabtaan iyo shaqadu waxay tahay wuxuu ku leeyahay labada markaan qabtaan garanaya inuu jin hayeen kale waa crazy ma aha maxaa halkan u geeyay halkan uu ku dilaya qofkii waa ku dilayaa inuu halkan taabto labada qabto cadaadiye ma marka waxa weeye marar badan bay khadac sameeyeen qaar baa ku daweeyo dadka maxaan ku raahdaa sonkor oo glucose baan waayo sonkor intuu kariyo maxaan ku raahdaa sonkortii dadna halkan xididka ka siinaya
masokor baa halka haddaad ka qaato waad ku dhiman soo maaha marka waxa weeye wadaadadani ha ka baxaan waxaan loo yaqaano medicalka aniga haddii qofkii wadaadee wanaagsani qofku arkaya ha u duceeyo ducaha u sameeyo ha ilaahay baan kuu baryayaa inuu ku shaafiyo laakiin waxaan yaryaree la walwalaaqaya iyo geedahan la xataa geedaha laftoodu dawo weeyihiin laakiin geeduhu waa inay noqdaan geeda la isticmaalo oo intaasoo sanood la isticmaalayay oo sida cuntadeenoo kalea waxay imika gaalo tiraa nutritional healing eeg cunto baastaa lagugu daweyn karaa bariis baa lagugu daweyn karaa sarreen baa lagugu daweyn karaa kamsaraa lagugu daweyn waxaan basal baa lagugu daweyn karaa toon baa lagugu daweyn karaa malab baa lagugu daweyn karaa waxaan aynu isticmaalnay caadiga ah oo weliba aanad iska badinayn intii dadku cuni jira aad ka cunto dawo mararka qaarkood way noqon karaan laakiin geedaha aan la garanayn waxay yihiin oo cid isticmaashay aanad garanayn oo cid lagu tijaabiye aanad garanayn waxaa lagu tijaabiya intaasoo kunoo jiir marka lagu tijaabiyo ayaa dad mutadawiciina dawooyinka lagu tijaabiya markaasaa la eegaa la baadhaa maxay keentay baashi hadhowtana wixii ay lahayd oo dhan baa dhinac lagu qora ta adiga ku daweynaysa aniga inay dilaysaa laga yaabo haddaba isla dawadii isla cudurkii adigana kawbay kaga siinaysaa cudur iga dawaysada inagoo isku cudur qabnaa adigana waxaa laga yaaba inaad ku bogsato marka dee cilmigii maxaan ku dhahay dawooyinku heer buu gaadhay soo garmaysa dalkeenniina waa available wuu jiraa dee qof ay duruufi ku qasabtoo waaye mooyaane intan wadaadadu qaadanayaan in la mid iyagaaba ka qaalisan marka wadaadaduna dib ha u joogsadaan diintoodii ay dadka barayeen ee de maxaan ku dhahay akhlaaqiyaadkoodii baasha dhisayeen laakiin yaana faraha la soo gelin maxaan ku dhahay medicinkii amba dawooyinkii doctore dawada iyo weliba ciqaabta qofku sida khaladkaa loogu ciqaabay ama la siiyey dhib intee leeg baa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara yaa garan kara marka lagu waraabiyo geed qaaqle aanad garanaynin yaa geedkan waa in la baaro geedkii oo la tijaabiyo oo la eego oo la sameeyo oo la baaro xataa garaacaanu dadka garaacaya lafteeda qalada maxaad ilmaha u garaacaysaa dhirbaaxadu ku dhufanaya adigaad buraardilaacaya bal youtube-ka gala imika oo eega siday dadka u daweynayaan oo samaynayaan qaar baa xataa akhlaaqiyaadkoodu khariban yihin oo qof dumaroo xurmaa isku raraya oo dusha uga baxaya marka waxa weeye waxaan laga sheekeynayaana sidaa idii sheegay gebigiisu wey marka lama garan karo waxaas waxa ka dhalan doona mustaqbalka imika qolooyinka qaar baa xataa dadka waxay sameeyaan maxaan ku dhahday dee waxay iska ahayd qosol bay ku ahayd hablahan yaree mar walba waan dhacaya qaar baa bac madaxa u geliyey bacda miikaha markuu intaa u geliyo intaa yar ku xidho ayuu dooda ma ka baxaysaa sidii sheekhay moogta ma baxaysaa mise waan kugu daa dee qof jin baxayaa ma jira waa qofka sariirsanin moogta waxaan hadlayaa ani jin maaha waa caynki marka markuu saa muddo yar ku hayo ayay gabadhii qaylaysa odhanaysaa waan baxay jin hebel baan oo waan ka baxay waa iyadii uun dee iyadun baa markii horena hadlaysa haddii qofka torturka iyo garaacidda lagu sii hayo ma keeni kartaa qaarkood dee iyagaaba waxaan loo joogin bay qabtaan qaar isagaaba afka u gelinaya caynkan dhe mar aamus buu leeyahy mar hadal buu leeyahy mar waxaa isagaabad moodaa inuu hogaaminayo dhimasho ma keeni kartaa dee waxay u keeni weyday dhimasho maxay u keeni weyday qaar badan baa ayaa nabarra badbada la gaadhsiiyey oo dadkaa jinka waa la garaaci jiray waa la garaacaya qaar baa afkiisa oo urayuu qaadaya oo warasuu ku buufinaya qof bini aadmi oo kasoo horjeeda oo laga yaaba inaanu cadeen boo qaad iyo qurun afkiisa ka buuxo ayuu saa ugu buufinaya soo garamaysid markaa candhuuf buu ku tufayaa soo garamaysid marka waxaan oo dhan dhammaantood dee maaha wax u hagaagsan maaha war ilaahay qofka u bari haddaad sheekh tahay ood xaaraan cun tahay oonad xaaraan cunin ilaahay wuu ka aqbalaya ducada nebigu wuxuu yihi alayhi salaatu adib madcabak takun mustajaaba dacwa haddaad hagaajiso waxaad cunayso aad hagaajiso ilaahay ducada wuu ka aqbalaya marka inta haddaad adigu tuf leedahay tuftii dadka ugu duceeya oo xanuunadan faraha badane haya ka duca haddaad waxu ducaynayso laakiin waxaanad garanayn geedihii ma garanayno soo garamaysa horta dawo oo dhan geed baa laga sameeyaa geeday ka yimaadaan laakiin geeda hadda waa la baadhaa muddaa laga shaqeeyaa waxaa ku jiray baa la eegaa dad baa lagu tijaabiya cudurkii baa lagu eegay baalkii marka hadduu sheekhaasi ku siinayo wax la cuno oo toon iyo basal iyo malab iyo caano geel iyo waxaan aynu cunayno ku siiyo is okay de waxaad dhibaatadeeda garanay laakiin geed aanad garanayn inuu ku siiyo xaq inagoo soo koobayna gabagabadii barnaamijkeena ku dhownahaye magaalada hargeysa maalmihii ugu dambe waxaa haadahaya cilaajiyo meel dadka si wadara loogu daweynayo oo dadka hal mar hal dawo la wada siinayo hama biyo lagu sida ama wax lamid ah bal daweynta noocaasa sheekh ka war waxa weeye wax dee qariib weeye xataa waxaan hore u arki jiray miya xataa wax culimadii hore samaysay maaha de waxaan ku shaqayn jirtay ku samayn jirtay waxa weeye imika waxaad arkaysaa ninkan samaacad buu sitaa intee la eg remote ku hadlayaa samaacaddu echo bay samaynaysaa echoga soo mataqaanid waxa weeye codka soundkaa soo noqnoqonaya codkaa soo noqnoqonaya buu leeyaho meeshoo dhan baa odhanaysa ilmaha yare ama gabadha cayn ka noqdeen science dhigan eekoogu wuxuu aan dhiganin dee shaydaanka inuu meesha marayaabay u qaadanaysaa iyo jirkii waxaan guuxayay inuu yahay marka waxa weeye waxaasoo dhan waa indha sarcaad
soo garmays samaacadaas waa indhasarcaad waa qayladii waa indhasarcaad aayar buu hadlo marka waa qayladan uga jeedaa xataa midba midku ka cod dheeriyay samaacadu dalacaan markay naagaha cuudinayaan samaacadu dalacaya quraanku cirka geenaya dhagahaas atlaaxaya waxaasoo dhan waxa weeye tamwii inuu ka dhigo sidii wax mataqaana baan ku sameynay marka waxa weeye ta kale waxa weeye dee qofka wax daweynaya ma aha intuu tiifiyada isdhigo uu youtubeda dhigo ya oo ilaa Yurub ilaa Mareykan yiraahdo wax baan daweynaya kaalayaay oo biyaha maxay taraan biyaha ugu soo maxay taraan bal ii sheeg biyo waxay tarayaan xalal waxay deed biyaha lagu goobay cudub biyo daweeyaan soo garmaysi goobay cudub biyaha daweeyeen marka waxa weeye wax samaysa oo dawada waa la yaqaan waxay daweynayso dadkan badidooda xataa imika jimba maaha waxaan u tagaa kuwa u tagaa wuxuu xanuun kasta waan daweynaya biyaha aan ku saydhiyo marka sheekhow biyaha igu shub qaar baa meesha yaacayo biyaha dadka ku daadeen markuu isagii taari kari waay 1500 oo qof ayuu stadiumkii dawladdu lahayd ee dalku lahaa ee kubadda dhalinyarada ku ciyaaraysay wadaad yar oo khusacbalaad aaminsan oo khuraafaad aaminsan loo xiray oo deedarada dadka biyo ku rusheelay hangarooda caynkaas ku taal marka waxa weeye 1500 mid walba ka qaatay inta lacag inta leeg maalinta waxa laga yaabaa inuu 15000 sameeyo 15000 kaas waa xaraan meel ay ku soo gambaa waxa weeye xoolihii dadka uu xaraan ku cunay noqonaysa marka waxa weeye de ma aha wax hagaagsan mana aha wax hore u jiri jiray isagoo ma aha kuwii hore u jiri jiray ee de iyagu loo iskeelka ahaayee xabad daweynay de ninkan uu ka badiyay ama waxa raada haadbahaadkii kana de wacdara dhigay isagu oo tii horeba de wixii hore biq buu ahaayee de 3000 oo qof buu daweynaya maalintii min $5 ka qaadaya 15,000 marka waxa weeye de qaar baa hore ugu jiray kuwii hore ugu jiray ma hadli karaan haday ku yiraahdo waxaan jooji wuxuu deeydinku joojiya idinku waa tiro waa baalkibada aaminsantii waxaan ku soo shaqeynaa doctor gabagabadii barnaamijkeena ma jirta cid ku bogsatay cilaajada dadka cilaajada tagaya ee dawada u doonanaya haddii aan lagu bogsanin maxay ka doonayaan maxay u tagayaan horta xagga dambe waxay u tagayaan waa dacaayad badan baa socota beentuna hadday soo noqnoqoto dee run bay u ekaanaysa marka inagoo dhan baa ayaa waxaan aaminsan adduunka dee dad baa inagula nool qaarad aadma nihin Somaliland ma aha dadkeedu dad dee qaarad kale ku noqon adduunka ka tirsanayn ummadaha inagula nool adduunka soo garmaysa waxaan ma jiraan marka inaga waxaan propagate gareynayno fidinayna wali waxa sii fidinayaan qabaa wadaadada ya oo mar walba casharada ku dhigaanba jimbaa gala qofka caynka waa inaad samaysaa halkaa marmarkasa waa inaad jinka mataqaana iska ilaalisaa wuu ku gelayaa waa inaad isdaweysaa iyagiba waxaan ku akhriyaya iyagaba maalin walba ka sheekeynaya hablihii yaryaraa xataa kuwii iskuullada dhiganaya ee dee aan weli aan ilbixin mid baa dhacayso waxaad moodaa mar bay wada daadanayaan mid hadday u bilowday inta kalena way wada bilaabayso waana dad qalbi jilicsan leh miskiinada dhacday baa laga yaabaa inay naxaan iyada lafteeduna isku wada daynaya marka waxa weeye qofkana dee waa qof iska caafimaad qabe waa qof waa isku dayasho beena waxba ka jirin waxna waxaa abuuray oo dee uu baneeyey oo mubaax ka dhigay yaa inay cabasho u waxani marka inay gabdhuhu jinka inay cawdaan dee horta xaq bay u leeyihiin oo dhibaato way haysaa laakiin inay jinka cawdaan halkay ka caban lahaayeen baa dee laga dhigay marka cabashadii dumarka haysay ee dee moogtii dhibaatada faraha badan la ku jirtay ee baahidooduna waa badan tahay ee baahidoodii in la ajiibo ay ahayd oo dharkoodii iyo qurxintoodii iyo waxay isku qurxiyaan iyo waxay u baahan yihiin halkii laga sii lahaa dee ma jiro wixii marka waa inay meel kaloo iskaygoodii ku carartahay markaa tirahda wadaadadii iyo miidiyihii iyo ummadii oo dhanna waa ku hataa jaraa'idkii hataa tvdii baad ka cayaysaa ninkaasi jinku dawaya waxaan u dawaya marka taasi horta mid bay keenaysa ta labaad ee maxaa dad ku bogsadaa ma jiro dee xanuunka masalan ka soo qaad suuxdinta muxuu ku daweyn karaa nabigii baa yidhi miyaad iska samri wilaada dadka maad iska sabirtid suuxdintii nabigii baa faraha ka taagto yidhi iska daa ama kuu duceeyaa bise jannadaad geli waad iska saadaasaad iska ah inta dawo dhakhtar helayso soo baxayso dawo soo baxayso marka waxa weeye xanuunadii badda kuwii waalidii waa la hayaa kuwii nerfiska ku dhacaya xanuunadii waa la hayaa soo garanaysa kuwii suuxdinta waa la hayaa kuwii depressionka hablahan badidooda depression baa haya depressionku waxa weeye qof wax tabanaya oo wixii uu tabanayay inala marka dee baahida meesha taalana waad garanaysa marka dadkaa jiricda salle vulnerableka ee mataqaanaa dalkeena ku jira ee weliba hablaha yaryar u badan ya xataa markay guursadaan way ka bacdo dee gabadha guriga waxba yeelanayso wixii ma yeelanayso waa intaa haddii gawr lehee dhacdaana waa mid ninkeeda ku xuyo anu calaamadan qaataa amba walaalkeed baa xun amba ninkeedaa xun gabadh dhacda haddaan arko meelaha tagto waayo dee uma baahna hadday nin hagaagsan leedahay amba walaal hagaagsan oo saacido leedahay dee umay baahateen ba cilaajiyo waxaan moogtay marka waxa weye xanuunadan kalena
dee waa la yaqaanaa iyagu waxay hayaanoo cilaajina ninkan wax walba waan daweeyaa ya dee dhakhtarkii baa jooga intaasoo 100 sannadood baa rikood la qorayay oo dad la soo tijaabiyey oo dawada lagu tijaabiyey oo lagu eegay side effectkeedii la eegay waxay keenaysaa la eegay maxaad uga cararaysaa waa $5 dhakhtarkii kana $20 ama $100 qaarkood ka qaadayaan marka waxa weeye labada waxaan lagu bogsan oo lagu sii socdaa oo lagu socdaa qof caafimaad qaba xooggiisa aad yaabto oo gashaantiya oo dee aan waxba qabin oo jinka iyadu geli karta jinkaaba jiiri kartaaba ayaad arkaysaa inay socoto wadaad u tagayso leeday jinba ugu jiro istuuraysa moogti mar qof caafimaad qaba marka waxa weeye labada jinka iyo waxaasaan dawo lahayn laakiin dhakhtarada marka loo tago hadduu yahay xanuunku suuxdin waa simple waxa weeye bil baad dawada qaadanaysa waa dugsanaysa hadduu yahay waali noocyadeeda la eegaya waa bahalaynaysa hadduu yahay depression waxaan ku hayaa waa lagula hadlayaa deedna af baaba lagu daweyn karaa iyo sabir iyo sida diinteenu marka diinteenaba dee hadday wanaagga u isticmaalaan diinteena oo qofka yidhahdaan aakhira jirta ilaahay uu ka abaal marinaya inna maca alcusri yusra dhibaatada maanta ku haysatay ilaahay berita uu kaa bedelaya khayr baa soo socda wanaag baa iman doona soo garmaysid shaqaad heli doontaa nin wanaagsan oo qiimalaa ku guursan doona in haddaa tahay soo caruur baa dhali doonta caruurtaada ku saacid war waxaan hadday akhriyaan waxay diintu sheegtay ya ayaa dee dawo ah laakiin jibban kaa garaacaya oon kaa samaynaya khafallah waxa la yaalo waxay taraysaa waana dee been aan raadlahay idinkuna waad aragtaan haddii jinku dadka wada gelaya ha galo aniga hay galo macalinka ha galo dhakhtarka ha galo wasiirada ha galo wasiiradana muxuu geli waaye wada daada waaye hablaha ku jira hablaha wasiirada maxay u daada waaye ma daadanayaan soo garmaysa ragguna ma daadanayo waayo dee ma aha baahidii ma taalo wixii hayama yaalaan marka waxaanay awoodi karin baa jin lagula galgalanaya xalkiisii moogta ya diintiina laga dhigaya mid u sikhiran oo dee wadaadadeenna ay mataqaanaa u aabayeen u jidaynayaan u xalaalaynayaan mar oranayaan sixir ka baqda mar oranayaan jin ka baqda khalkhal baa qofkiiba la gelinaya qofka muuminka waa qof qawiya isku kalsoon shaydaanka isagu ka adag inna kayda shaydaani kaana daciifa ma yeelo dadka muuminiinta waxba ma yeelo iminka dadkii wadaadadaabu shaydaanka dhibaya bilcakis waxay dadka wadaadada inay shaydaan ka adkaadaan hablihii suuqa dhaariska ku ciyaaraya tumanaya heesaa qaabay jinmiyuu dagaalaa muxuu jinku gari waay waxay ku odhanayaan kuwa meel buu ku tiirsaday oo kuwan u ugaarsanaya kuwan ma ugaarsanaya iyagaa ka dhaadhiciyey oo ku yidhi jin baa jiro idin gelaya oo masaakiintaa ka dhaadhiciyey inantaas hadday maalin lacag yeelatana amba adduun yeelatana jinba ma geli jinku waa faqri jinka laguu sheegaya waa faqri iyo gaajo iyo baay marka waxaad leedahay wax jinay ma jira ee qof uu jira jinku laakiin ma gala dadka jin galay qofka ma jira ee baahi baa keensanaysa qofka baahi uu qofku cabir dadkana aynu aragnay baahi waxaa jira nin la yiraahdo al-amri sacuudi arabiya joogay wuxuu daweynayay 20 sano ayuu jinka daweynayay maalintii dambe jaraa'idka inta soo qaday buu ilaahay baan ka baqanay 20 sano nin ka dawo badan ka baalaysna ma jirin waxa la yiraahdo waxa daweynayay jin mu ahayn buu baan jin dad galaan ma jiro soo garmaysid waxaan soo taabtay inaan ahayn xanuunadu waa sarac iyo maxaan ku raahday depression iyo xanuunada dadka haye kaas waa jin jiro oo caynkaasina ma jiro luqada jinka jinku ma isku luqaynunay ya qaar baa koonaya jinku wuxuu ku hadlaa af kale dee afka taqaaneen buu ku hadlaya inanta afkii ay taqaanay ya hadday ingiriisi aanay aqoon wada ingiriisi kula hadasho may ku jawaabi kartaa jinku ma af Soomaaliga buu yaqaan ma af kale aqoon midda kale macluumaadka ay gabadhu hayso imika gabadhu hadday aqoonteedu intay tahay uu jinku ku hadlaya marka jinkii iyadu waa iyadii uu jin markaa ma jiro haddaanay maatista aqoon gabadho dee maatis haddaad weydiisoo tiraahdo 6 plus times 14 waa imisa dee kuu jawaabi mayso bal jinkii oo ka jawaab 6 times 14 haddaana xisaabta aqoon kama jawaab laakiin hadday taqaanada waa ilan iyadii baa hadlaysa markaa way kaaga jawaabi marka waxa weeye aqoontan uu qofku leeyahay unbuu jinkan waxaanay sheegayaanna ku hadlaya halkaa waxaad ka garanaysaa riwaayadda waxaa dhigaya inay yihiin sheekha iyo qofka buka inay riwaayadda labadoodu matalayaan ee waxaan wax jira aanu ahay ishii baliyada ka war ishu waa xaq laakiin dee sida loo buubuurinayo loo sbacay ish hadal ma laha waxaan isha loo yaqaana waxa weeye waa xasad waa nooc min alxasad xasadkuna qofka muslimka qofka uu dilaa moogta waxa weeye inaad xasadka qofku markuu wada aragto walaalkaa waxaysta nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maasha allah dhe innagu soomaali baynu ahayn waanu la yaabi jiray ilbaa wax gasha iyo waxaan dadkeen mu aqoon waar dadkii waa la bajiyay bahdii baa laga saaray waxba la'aan baa laga dhigay sacuudigaanu tagno markaanu saarnaa alla waryaha qurux badanida ayuu kugu dhagaya kalarka ku qabsanaya ninka sacuudiga maasha allah dhe maasha hayga tegin maasha allah dhe waa maxaa maasha allah ka idhaa sacuudiga yidhi waad qurux badantay
dee haddaa qurux badan soo adigu iska ugu qurux macnaheedu dee waa il baa jira haddii kalood aanad maasha allah oo dhan buu ku leeyahay waan dhimo waxbaa noqonaya dheh maasha allah haddaa tiraa waa nin xariifsanida waxaa qul maasha allah buu ku odhaya waan la yaabi jiray dee maynu lahayn inagu waxaa soo garamaysa inkastoo dee maasha allah ay diinta ku jirto laakiin dee in laga badbadiyo soo garamaysa oo wax walba la yidhaha waa il ya dee ma aha qofka muslimkii ilaahay isugu kalsoon yahay soo garamaysid ma aha inuu yidhahdo wax walba maxaan ku dhahay il baa igu keentay iyo bahal baa igu keenay iyo xasad dee waxaa ka sheekeeya maynu lahaan jirin laakiin iminka dadkii waa la baadilay waa la baray il inay ka baqaan xasad ka baqaan xinka bahalkii ka baqaan waxaan oo dhan waxaan waa la samaynaya dad baa samaynaya marka dee way isxasidaan gaaladu way sileeyaan maxay wax ugu noqon waayeen ya maxaa horta faqriga dadka masaakiinta oo bahalkan ku tira il iyo xasad bahalkan jin iyo sixir iyo maxaa masaakiintan ku galowbeeyey dadkan waxba haysan buu ka adagay may kuwan ula tagaan ninka wax isla hayaa ee wax samaynaya ma kuwan la tago marka waxa weeye ma jiro doctor waxaanu taaganay gabagabadii barnaamijkeena laba su-aalood baan kusoo xiri doonaa su-aasha koobaad waxay tahay yay mas-uuliyadda ka saaran tahay inay kaantaroosho ama maamusho ama dabagasho cilaajada iyo habka wax u daweynayaan oo ay joojiyaan haddii aanay qayru sharci yihiin oo aanay sharciga waafaqsanayn iyo taladaada aad siinayso bulshada iyo qaybaha kala duwan ee ummadda reer somaliland example baan ku siinaya masalan ciday saaran tahay nin dhakhtaroo macaw miyaa la odhan jiray tv-ga iska xayeysiin jiro la joogay muxuu magaciisu ahaa doctor macaw waxbaan aqaanaa buu yidhi gaanahorjigaan aqaanaa badhabadha waxaa halkan u yimid dumarkii oo dhan baa isku daray inay liiskiisii sameeyaan somaliland dhakhtarada riboort soo saaray waxay yidhaha ninkaasi aanu iman waa laga eriya dalka muu qaban iyagay u jirtaa sidii ay u yidhaahdeen xaq baanay u leeyihiin inay yidhaahdaan soo garamaysa kani maanta dal buu ka yimid yaa kaasi 4 qof buu daweynaya iminka wuxuu marayaa 10,000 buu marayaa cidday khusaysaa waxa weeye cidda maxaan ku hadda waa dhakhtarka ahaa ee de cilmi dhakhtareed waday waa mid waxaan la garanayn wado dad ku rusheynaya biyo ku rusheynaya dee waxay ahayd inay ka qabtaan wasaaradda iyo culimada iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo culimada dalku inay waxan qabtaan oo dalka wax walba aan la keenin weeye kuwa hore u shaqaynayeyna in check up lagu sameeyo iyagana weeye haddii la doonayo xiwaar in la sameeyo ya dee ha keenaan oo ummaddu intay dhegaysato idinka laftiina xil baa idinka saaran wacyigelinta xil baa ka saaran saxaafadda xil baa ka saaran aqoonyahanka xil baa ka saaran war waxa maxaa loo shuqsanaya war dadka hala keeno ha laga wada hadlo taladaada ugu dambeynta inuu galno maxaad kula talinaysaa bulshada waxaan kula talinayaa bulshada kow wax allayaalo wax qofkii jin ka baqanayo soo jinku inama maqlayo aniga igu soo xawila jinkiina oo dhan waa kow ha baqaninoo ilaahiina aamina ilaahay baa wax qabta ilaahay baa sameeya wax allayaalo qul lan yusiibunaa ya ilaa maa kataba allahu lana wixii ilaahay noo qurbaan helay waar waxaan kale iska ilaaliya laakiin waxaanad garanaynba wuxuu yahay waxaas kaga ilaalisaa ma jirto carruurtana baqaha ka daaya ya iminka aduu caasho badhi intaa saa u kala dilaaciso mid calaashan kartaa dee dad calaashadaa jira caasho badhida adiga dee foobiyaa lagu geliyo waxa lagu yidhi caasho badhi al jin naagta jinka weeye uma dhowaan karta laakiin dee jaynisku hadduu doono u calaashanaya soo garamaysid ya oo dee qashbaabu ka siinayaaba soo maad gara waa maxay dee lagama bajin marka qofka marka la bajiyo foobiya la geliyo saasuu ku noqon marka waxaan kula talinayaa horta dhalinta iyo hablaha ilaahay ka yaaba waxba ma jiraan hablaha mushkiladaas way xalilmi wadaadadan waxba yaana idiin sheegin jinna idinkuma jiro ilaahayna ka yaabo ilaahay u sabra ilaahay cuwad buu idin siinaya waalidiinta waxaan leeyahay iyagana caruurta baqaha aad baqa gelinaysaa sixir baa jira jin baa jira war uu sheega wadooyinka ammaanka sidaan uga hadlayo kale waxay say isku badbaadinayaan laakiin jin baa goliyo waxaanad garanayn baa dadka odhaya waalidkuna waa inuu xil iska saara saxaafaddu waxaan waa inay xil iska saarta waa mujtamac hasha oo cid waliba ka dhaashan karto oo ilaa jinkii ilaa insigii cid waliba ka dardarsan karto waxaan jirin iyo wax jiraba mujtamacan inuu noqdo maaha mujtamacii adkaan jiray lahaa qiimaha xorriyadda ahaa xorta ahaa baa la doonaya dadkeenu daawadan intaas waxaanu kusoo afmeerinaa barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadlaynay arrimo ka taagan dalka barnaamijka waxaa noogu martaya doctor maxamed cabdi daawud anigoo luqmaan maxamed faarax iyo dhanka kamaradaha sakariya cabdi bariye xasan cabdilaahi jaamac iyo qaybta farsamada axmed weli beenyo waxaanu kaga tegaynaa sidaas assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu الله يسلمك بارك الله